dowladda federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay Soomaali la sheegay in laga soo celinayo dalka Jarmalka. Arrintan oo looga hadlay kulan dhexmaray madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka. Wasiir dowlaha arrimaha dibadda Soomaaliya Cali Cumar Cali Balcad ayaa sheegay in Soomaalida la soo celinayo ay yihiin kuwa dambiyo kala duwan ka galay wadanka Jarmalka sida dil iyo kufsi kuwaas oo maxkamadda dalka Jarmalka ay xukuntay. balse waxa uu beeniyay inay jiraan Soomaali dalkaasi sharci darro ku joogto kuwaas oo laga soo celinayo dalka Jarmalka. Cali Balcad wuxuu carabka ku adkeeyay in dowladda Soomaaliya iyo Jarmalka ay ku heshiiyeen in 20 qof oo ku xukuman xabsi lagu riday dhamaystay dib loogu soo celinayo Soomaaliya kuwaas oo aad u yar marka loo eego 80,000 oo Soomaaliya oo ku nool dalkaasi Jarmalka. Cali Balcad oo la weydiiyay si ay dowladda Soomaaliya dalka ugu soo celinayso dad geystay dambiyo khatar ah sida dil iyo kufsi iyo waxa uu qorsheysan marka ay yimaadaan waxa uu sheegay in qofka hadii uu dhameystay xukunka iyo ciqaabtii lagu riday aysan jirin sabab kale oo loo marsiyo ciqaab kale. Cali Balcad ayaa sheegay in dowladda ay baaritaan ku sameyn doonto in 20kaasi qof ay yihiin Soomaali maadaama wadamada jaarka ay Soomaalida muwaadiniintooda qaar ay sheegaan in ay Soomaali yihiin marka ay Yurub tagaan oo sidaasi isku dhiibaan. Wuxuu sidoo kale sheegay in ay xaqiijin doonaan hadii ay yihiin kuwa galay dambiyada lagu xukumay. dhawaan ay ahayd markii madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho ku degay dalkaasi Jarmalka halkaas uu kula kulmay hogaamiyaha dalkaasi Jarmalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka ayaa ka wada hadlay arrimo dhowr oo ay ka mid yihiin sidii Soomaalida dib loogu soo celin lahaa muwaadiniin Soomaali ah oo dalka Jarmalka ku sugan balse arrimahaasi ay baraha bulshada ka dhaliyeen dood xoogan iyada oo dadka ku sugan gudaha Muqdisho iyo kuwa dalka Jarmalka ku sugan ay arrintaasi ka keeneen dood xoogan.